maxay tahay sababta Cabdullaahi Maxamed Nuur u beegsaday ciidanka NIS ee garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho? wasiirka hore amniga galmudug xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay sababta ka dambeysay tallaabadii wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ku amray agaasimaha NIS Yaasiin Faray in ciidanka NIS uu ka soo saaro garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho. Fiqi ayaa aad u taageeray tallaabadaas isagoo sheegay in ciidanka NIS ee sanadihii dambe garoonka aadan cadde ka howlgali jiray ay fulin jireen danaha gaarka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidanka NIS ee garoonka ku sugnaa ayaa sanadahan dambe waxay garoonka u taallay isbaaro lagu cadaadiyo ama ay ku afduubtaan dadka madaxweyne Farmaajo ka aragtida duwan ee safraya. mararka qaarkood waxa ay xanibi jireen socdaalkooda, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi war qoraal uu soo saaray. Fiqi ayaa sheegay in ciidanka lagu amray in ay ka baxaan garoonka ay horay u afduubteen dad u safri lahaa gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo ee Jubbaland intii ay cunaqabataynta dowladda dhexe saarnayd deegaanada maamulkaas. waxay hore u afduubteen mas'uuliyiin oo Socdaaliya Kismaayo ama gobolka Gedo, gaar ahaan xildhibaano qaran ku jiraan oo ay ka rabeen safar ay ku socdeen. waxay cagajugleen ku hayeen ciidamada booliiska iyo shaqaalaha garoonka. waxaa la xasuustaa xadgudubkii ay kula kaceen saraakiisha iyo shaqaalaha hay'adda socdaalka iyo burburintii ay u geysteen qalabkii garoonka oo aan waxba laga qaban, ayuu yiri Fiqi. ugu dambeyntii Axmed Macalin Fiqi oo wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ku bogaaday go'aanka nabad sugidda looga saarayo garoonka ayaa qiray in ciidanka ka shaqeeya ee sirdoonka looga baahan yahay garoonka aadan cadde, balse kuwa hadda jooga ay muhiim tahay in la bedelo oo la keeno ciidan shaqadaas daacad u ah. tallaabada uu qaaday wasiirka amniga waxay mudan tahay bogaadin soo dhoweyn, waana mid meesha ka saaraysa ciidamo u shaqeeya sida hantigaashtii gacaanka. NIS kaalin dhanka sirdoonka ah waa ku leedahay garoonka, balse waa in xirfadayaashii hawshaas qaban lahaa oo nadiif ah la soo xulaa, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi wasiirka hore amniga galmudug. amarkii xalay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ku socday Yaasiin Faray oo looga dalbaday inuu ciidanka dharcadda ee NIS ka soo saaro garoonka ay waqtigiisa ku ekaa maanta, balse ilaa hadda ma jiraan wax caddaynaya inuu fulay.